munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasna lagu soo afmeerayay sanad waxbarasheedka madrasada maxamuudiya ee Xingalool laguna soo dhaweynayay ardada cusub ee sanadkan dugsiga ku soo biiray waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer degmo bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Daahir Cabdi Maxamuud maamulaha madrasada maxamuudiya waxa uu tilmaamay in dugsigu sanadba sanadka ka dambaysa horumar ku talaabsanayo ayna markasta ku dadaalayaan tayada waxbarasho iyo kor u qaadida. dhanka kale qaar ka mid ah barayaasha madrasada waalidiin iyo mas'uuliyiin kale ayaa madasha ka hadlay. hadda la joogo oo 2017 ah waqtigii uu maxadkan bilowday 2012 bay ahayd waqtiga 7 sano marba istaab buu ahaa marba marka ka dambeeya haday noqoto arday ahaan iyo haday noqoto tay ahaan iyo haday noqoto macnaha macallimiinta ee soo kororkooda iyo wanaagooda iyo kartidooda wax walba oo wanaagana ummadu Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmuhu wada jir bay wax ku gooyaanin kolba waalidka macallimiinta ardayda maamulaha howlwadeenada kulli waa wax isku xiran hadii aan midba midka kaleeto aanu ilaalin hawshii la wada qaban wanaagii la wada sameyn deeq loo wada jeesan waxba ma hagaagaanin qof waliba wixii markaas badeecadiisu ay ahayd soo bandhigaa haday xun tahay badeecadiisa markaas iyo haday ay fiican tahay wuxuu hayo ayuu soo bandhigaa runtii bandhiga markaas meeshan ka muuqda ama idinkuba aad arkayseen haddii ay waalidiin tihiin iyo dadka kale markaas ogsoon markaas macadka xaaladiisa waad arkayseen adduunka maanta ee joognana waxa weeyaan waa ay ku soo itaabsi quraanka aqriya waana markaas quraanka oo aqridaana maalinta qiyaamaha ayuu iman doonaa isagoo qofkii aqrin jiray ku amal fari jiray baran jiray u shafiicad qaadi doona waa xadiis markaas uu isbedelka ka muuqda ee waxbarashada ayna waadaan macallimiintu ay bixiyeen hadaan dadaalka noocaas bixin ardaydu ma soo baxdeen marka waxaan leeyahay macallimiin oo mahadsan tihiin bartina ka sii wada dadaalkana bartina ka sii wada jazakallahu khayran waxaan aajabkiina waa heleysaan idina waxay soo bixi doona arday aad ku farxdaan aad iyo aadna waxaan ugu soo jeedinayaa hambalyo iyo bogaadi dadku ku soo tabcay ama waalidiin ha ahaadeen ama macallimiin ha ahaadeen waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa ardayda dhamaysatay xilli dugsiyeedka oo ugu gudbisay xilli dugsiyeedka cusub ardayda kaalmaha gashay iyo ardayda akhrineysay nashidooyinka duwana ee ku muujinaya aqoonta. madrasada maxamuudiya Xingalool ayaa ka mid ah dugsiyada sida weyn wax looga barto ee degmada Xingalool uguna tayada waxbarasho wanaagsan. Maxamed Saalax SBC